تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا يوتيوب جانل كينا قفك إذن الله اللي واسماء جانل كايغا داوانيسان واسماء عبد السلام. هداي تاي داودا مركي أهرسي آد صوبوقة جانل كينا فضلا سبسكرايب كنوصار. هداد هورينا ولا جوكتي أو آد كميد إهيد أصحاب أسماء فضلا لايك تاك يدير قلنتو وحقاقا أصحابي سيدا إيغا براتين عاو حايدين ودا قصة عصب. qisadan ayaa waxay ka dhacday wadankaas Ciraaq gobol la yiraahdo Baabil magaalada Xilla. qisadan ayaa waxay ku socotaa gabar la yiraahdo Shayma iyo wiil la yiraahdo Aws. qisadan ayaa waxay ku socotaa gabadhan la yiraahdo Shayma iyo wiilkan la yiraahdo Aws. sida idin sheegay Shayma waxay dhalatay 1992 waxayna ku dhalatay magaaladaas Xilla. Shayma waxay ahayd gabar maaragtaa aabaheed si fiican u soo tarbiyay waliba dhanka diinta haday ahaan lahayd salaada haday ahaan lahayd xijaabka haday ahaan lahayd akhlaaqda dhan walba gabar aabaheed aad ugu soo dadaalay ayay ahayd. aabaheedna gabar aad u jecel yahay ayay ahayd ilaa uu ka gaaray heer uu maaragtaa aabaheed uu dhaho ma cunteynayo haduu guriga yimaado ilaa ay Shayma timaado oo Shayma ila soo cunteyso oo aan Shayma arko. يعني جعلك وقبة جبديسة إن أضجان هركس أيو جارسي سنة إن واحد عضي شيماء إني معركة وحبرشة كوشرتي إن هركة دكسيجا لحقي كوشرتي أضو شيماء دكسي لحويدا ما يسي وحيكو بيرتي أو قشي كولج أي سي وجبرته معركة حرفة جناعسيجا أو معركة أي وبرته أي قشي كولج. إن كولج كاس أي جناعسي كبرنيسي نصيب درو ما أي صدق ما يسترن. إن كولج كأي وحي كبرتي ويلي هذا أوس ويل كاس أصلاً وحو ديجانية كولج كقيبته وحو براني إن كرنتدا يفرسنا ذا كعنتا أي كرنتدا أيو براني إن أوس وحوها ويل أنا يراه أيضاً وحبان وحير كوين وحو الشيء كون سجال بقول استيتانيو سجال كي halka iyadu ay ka dhalatay 1992 waxa dhacday in Aws iyo Shayma maadaama college-ka isla dhiganayeen iyaduna ay dhiganaysa qaybta ganacsiga asagana uu baranayay farsamada gacanta iyo korontada ayaa waxa dhacday inuu Aws jeclaaday gabadhan Shayma. haduu jeclaaday muddo ayuu maaragtaa uu isku dayay inuu gabadhan la kulmo oo maaragtaa isheeg muxuu ahaa oo de uu jacaylkiisa u sheegto oo ayaduna de markii dambe way jeclaatay wayna ka aqbashay waxayna ku tiri Aws aniga hadaa jeceshahay oo ay rabtid mar rabay tiri ina aabahay oo aniga aad igu hanweyn oo jecel oo maaragtaa gabdhihiisa wiilal iyo gabdho walaalo ah way la dhasheen anuuna igu jecel yahay aabahay mana rabay tiri ina aabahay niyad jabiyo. hadaad aniga jeceshahay oo ay rabtid Aws waxay ku tiri isoo doon oo si maaragtaa waxa ku soo gashaa gurigeena si caadi ah oo maaragtaa lagu og yahay oo maaragtaa oo de maaragtaa idab ay akhlaaq ku dheehan tahay gurigeena u imo oo ila sheekayso oo reerkeena saa ku soo buro ayay ku tiri. adiga Aws maadaama uu gabadhan rabay oo uu jeclaa haye ayuu yiri muddo yar kadib waxa dhacday in maaragtaa Aws iyo family-giisa ay u yimaadeen guriga maaragtaa Shayma aabaheed iyo gurigooda ay yimaadeen iyagoo gabadhan soo doonanaya. aabaheed wuu yaabay markii la yiri Shayma ayaa la soo doonaya oo dadkan Shayma ayay doonayaan wuxuu dhahay ninkan la leeyahay Aws ee gabadheeda soo doonay waa ina maaragtaa soo ogaadaa marka hore intaana gabadheeda insin akhlaaqdiisa diintiisa dhaqankiisa maaragtaa noloshiisa de hore wax walba waa inaan soo ogaadaa marka wuxuu dhahay iga warsuga aniga. sidii ayuu aabihii wuxuu aaday Shayma aabaheed waaye wuxuu aaday xaafadii uu ku noolaa ninkan oo Aws uu deganaa iyo dadkii yaqaanay ayuu raadiyay xaafadii ayuu weydiiyay waxaa la yiri ninkan nin aad u fiican waaye nin maasha Allah waaye akhlaaqdiisa kala arag ay tahay dib laguma oga adugu dadkii aad ay u amaaneen
odaygii aad ayuu u yaabay wuxuu yiri ma waxaa jira qof bili aadana oo maaragta in lahayn dadku say u amaanayaan ninkan dartiis odaygii oo yaaban ayaa waxaa jirtay in maaragta ay qaraabo ahaayeen aws eedadiis iyo gabadha Shayma hooyadeed meel ay qaraabo ka ahaayeen ayaa jirtay adigu sidii ayaa loo weydiiyay maamadaasna waxay tiraahday wiilkan maasha Allah way gabadhaadana wuu qalmaa marka waxaa la yiri gabadhaada si ayay ku tiri ma fahanteen adigu almuhim sidii ayaa maaragta Shayma waxaa lagu aroosiyay oo lagu siiyay ninkaas aws adigu sanadkii ugu horeeyay waxaa la iska ahaa reer iska faraxsan oo maasha Allah bilihii ugu horeeyay adigu sanadkii ilaa sanadkii uu ka dhamaaday aad ay reerka u faraxsanaayeen wax dhib ah ma jirin muddo yar kadib waxaa bilowday inuu maaragta ninkii aws ahaa uu maaragta dagaal sameeyo oo gabadhii maaragta dilo oo maaragta dhaqan xumo sameeyo oo dhaho reerkiina ma aadi kartid gurigiina ma aadi kartid guriga aabahay hooyada adigu sidii ayuu wuxuu sameeyay ninkan dhaqan xun la yimaaday adigu waxay sameysay gabadhan way iska qarsatay jabkeeda oo umaysa sheegin lamaysa wadaagin hooyadeed iyo aabaheed iyo walaalaheed wiilasha ah haday ahaan lahayd gabdhaha lamaysa wadaagin jabkeeda oo iska qarsatay gurigeeda ay iska joogi jirtay markasta uu dili jiray macnihii dhaqan xun ayuu kula dhaqmi jiray waxaa dhacday xataa in maaragta maamada oo guriga joogtay oo asaga hooyadiis ahayd iyada ula dhaqmi jirtay sidii khadaamadii yacni shaaqiyadii ama sidii qof shaqaale ah guriga jooga in la dhihi jiray wiilkeena ku soo aroosay wuxuu ku soo aroosay inaa cuntada karisid oo jikada maaragta ka shaqaysid oo guriga dhan ka shaqaysid ayaa lagu soo aroosay adigu almuhim sidii ayay waxay sameynaysay gabadhaas miskiinta ah Shayma ay shaqada guriga iyo wax walba isku haysay ayadoo familkeeda aan waxba la wadaagin dhibkeeda muddo yar kadib waxaa dhacday in maaragta Ilaahay uu siiyay gabadhaas oo u bixisay Fatima waxaa dhacday maalmaha kamid ah inuu dilay oo maaragta uu Shayma dilay oo dhaawac weyn soo gaaray oo ka muuqda oo gurigooda ay timid hooyadeed iyo aabaheed iyo walaalaheedna ay tustay hadhowna lagu yiraahday kuma noqonaysid oo waa joogaysaa gurigiina joog kumana noqon kartid ninka saa kuu dilay oo xataa familkiisa markuu ku dilayay hooyadiis iyo walaalihiis iyo aabihiis ay joogeen oo hadana aysan ka celin waxaa lagu yiri kuma noqonaysid ayaa lagu yiri waxay tiri hooyay aabaheed ayay waxay ku tiri aniga ma rabi in la dhaho gabadhii la soo furay oo hadhow sumcad xumo la dhaho waxaa loo furay way qabtaa mujtamacaan macnihii carabta dhaqankooda ayaaba saas ah gabadha la soo furo aduu ayada ceebeysan oo qof maaragta ceebeysan ayaa laga soo qaadaa hadduu xataa ninka khaldan yahay lama fiiriyo adigu waxaa dhacday in maaragta Shayma ay tiri aabaheed iyo hooyadeed ay ku tiri ma rabi inaan gabadhayda aaba la'aan iyo hooyo la'aan ka dhigo mana rabi in maaragta mujtamacaan aan fursad oo maaragta ay ugu sheekaystaan aan siiyo marka gurigeyga ayaan iskaga noqonayaa adigu gurigeedii ayay ku noqotay gabadhaas dhibka kale oo haystay waxaa ka mid ahayd in maaragta gabar walaashiis asaga ah ay jirtay oo deganeed caasimadda Baqdaad gabadhaas markasta oo ay guriga timaado wuxuu sameyn jiray iyada uu soo ceyrin jiray xaaskiisa Shayma gabadha miskiinta wuxuu dhihi jiray bax guriga hooyadiin aad guriga hooyada aad iyo reerkeena aad aniga macnihii hadhow adigu markay guriga timaaday aabaheed ayaa wuxuu ku yiri markasta oo walaashiis ay ninkan timaado muxuu ku soo ceyriyaa waxay ku tiri aaba wax dhib ah ma jiraan walaashiis iyo aniga macnihii de wax maba isnaqaano mana baran laakiin asaga saas uu sameeyaa waa dhaqankiisa adigu waxaa dhacday gabadhan miskiinta in maaragta waxba meesha ka qornaa oo qadar ayaa meesha socotay adigu sidii ayay ku nooleyd oo waxay ku nooleyd tacadi in loo geysto oo maaragta lagu xadgudbo oo ninkaas maalin kasta uu dilo jirdil ku sameeyo cayda dhibka iyo qaxarka ee gabadha ku nooleyd de maaragta si uga sheekeynaysa qisadeeda sida looga sheekeynayo qisadeeda macnihii de wax maaragta laga sheekeyn kara maahan adigu waxaa dhacday maalmaha kamid ah ayaa waxaa dhacday
guriga iyadoo ay ku nooleydna wuxuu ahaa guriga familka ninkeeda oo qol ayay ka deganayd, jiko u gaar ah iyo guri u gaar ah iyo nolol u gaar ah toonna ma aysan haysan Shayma. waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dadku dhowr jeer baa dadku waxay kusoo dhaheen Shayma ninkaaga Facebooka wuxuu soo dhigdhigaa naag sawirkeeda oo wuxuu dhahaa naagtan naagteeda waaye adigana ma ahan. dhowr jeer bay dadka ku dheheen sidaas dheg jalaq umaysa siin oo way ka sii socotay arrintaas umaysa joojin Shayma. waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah in maaragtaa aws aabihiis uu soo waco gabadhan Shayma adeerkeed uu dhaho ma noo imaan kartaa. Shayma adeerkeed wuxuu dhahay haa waa idin imaan karaa. I don't know sababta uu wici waayay aabaheed. adiga Shayma adeerkeed ayaa la soo wacay, waxaa lagu yiri ma noo imaan kartaa. aws aabihiis ayaa dhahaya haa ayuu yiri. guriga ayuu yimid mise waa gabadhii Shayma ahayd oo biskoolad agtaalo oo maaragta mayd ah. waxaa lagu yiri gabadhan Shayma oo adeerka u ahayd way isdishay. wuxuu yiri see isku dishay, way isdishay ayaa la yiri ma la yaqaan sababta ay isku dishay. wuxuu yiri adeerkeed Shayma qof oo saa iimaankeeda daciif u yahay ma ahayn, waan ogeyn inay dhibanayd oo dhib haystay oo mashaakil badan haystay, laakiin inay heerkaas isdirayso aniga ma aaminsani. adoo booliskii ayaa loo wacay. booliskii markuu guriga yimid iyo familkii gabadha dhan loo sheegay ee gurigooda yimaadeen, waxaa dhacday in maaragta booliskii uu arrintii baaray oo gabadhii meydkii la qaaday oo talaagada la geliyay. hadhowna booliskii maaragta uu isheeg arrintii galay oo dhan walba la wareystay oo la baaray. waxaa dhacday aabaheed Shayma inuu yiraahday gabadhayda aniga waan aqaanaa, anaana dhalay, anaana gacanteeda kusoo tarbiyeeyay diin iyo akhlaaq iyo waxaan kusoo tarbiyeeyay tarbiye axsan tarbiya micnihii tarbiyadii ugu wanaagsaneyd, mana aaminsani gabadhayda inay heerkaas gaarayso inay isdisho. marka wuxuu dhahay gabadhayda waa la dilay, yacni qof isdishay ma ahan. adugu askartii kiiskii ayay gacanta ku hayeen oo baarayeen. kadibna waxaa dhacday wuxuu yiraahday aabaheed aws Shayma aabaheed wuxuu dhahay ha loo yeero dhahay gabadheeda yarta oo markaas 17 jir ahayd. qisadan ayaa waxay dhacday 2017kii. markaas Shayma gabadheeda Fatima waxay jirtay 7 jir camal bay ahayd. waxaa lagu yiri maxkamadii ayaa la keenay oo lagu yiraahday aabaheed markiiba wuxuu tuhmay inuu dilay gabadheeda ninkan aws la leeyahay oo ninkeeda ahaa ayuu dambiga saaray in gabadheeda uu dilay, gabadhiisa uu dilay oo yacni inaysa gabadhiisa dilin ayuu odow macnihi ka sheegay meesha. adugu ninka ugu dhow dadka unbaa loo xiray oo ahayd ninkeeda kiiskeeda inuu maaragta dilay. gabadhii yarta ahayd ayaa maxkamaddu waxay weydiisay, waxaa lagu yiri Fatima sidee u aragtaa in hooyada dhimatay, yaase hooyada dilay. waxay tiri aniga hooyaday markay dhimanaysay ma u jeedin, laakiin mana ogeyn wax dilay, laakiin waxa aan ogahay tiraade aaba markasta maaragta inuu ii sheeg hooyo biskoolada ku qaban jiray uu dhihi jiray waa ku dilayaa hadaad mar dambe ju tiraahid camal. waxaan kaloo arki jiray tiraahday ayeeyo oo dhahda waryaa naagtan naga edbi oo maaragta muxuu ahaa naagtan iska qabo oo naagtan sida u dhan iyadoo dhahda micnihii dee oo ayeeyo boori wax u sheegaysa aabe oo ay leedahay dil camal. adugu gabadh yarta ahayd oo Fatima ahayd sidii ayay maaragta ay ugu micnihii maxkamadda sidaas ayay waxaas intaas ayay ka sheegtay inay arki jirtay aabaheed oo hooyadeed biskoolad ku haya iyo ayadeedo dhahaysa waryaa naagtan maaragta naga edbiyo maaragta ii sheeg adugu hadalladaas dhahaysa. adugu waxaa dhacday askartii inay maaragta kiiskii baaraysay oo la ogaaday maaragta gabadha xabada meesha uga yaaleen iyo biskoolada sidii u haysatay iyo qaabkii. adugu qoladii dambe baarayaasha ay ogaadeen in aysan arrintaas ahayn arrin intixaar yacni ama isdil aysan ahayn.
waxaa dhacday askartii in maaragta ay weydiisay Aweys in muxuu ahaa kiiskan maadaa aday lagu leeyahay layiri Aweys ka waran aduu aakhirkii Aweys maaragta wuu qirtay kiiskii oo wuxuu yiri aniga waan dilay xaaskeyga ii sheeg muxuu ahaa Shayma haddii micnihii xaaskeyga Shayma waana dilay ayuu yiri haddii lagu sheego sababta uu u dilayna wax caqligaaga gali karo yacni adiga aadba dhageysta ma ahan yacni waa wax aad maaragta oo daciif ah wuxuu yiri aniga ayaa dilay xaaskeyga sababta aan u dilayna waxay ahayd waxaa jirtay gabar aan jeclaaday oo jeclaa gabadhii iyo aniga fursad ayaan isku weynay oo waxaan damcay dhowr jeer inaan maaragta aan Shayma furo wayna diiday oo markasta guriga ayay ku soo noqonaysay sidaas la arligeed ayaa aniga iyo gabadha aan isjecelnahay waxaan dhex taagnaa Shayma ayay ahayd sidaa darteedna maba jirin badee xal aan wax aan sameeyo oo aan ka ahayn in maaragta aan ii sheeg inaan maaragta iyada dilo sidaas ayaana biskoolad u soo qaatay oo guriga meesha ugu sareysa saddexa kore oo ugu sareeya ayaan ugu yeeray waa muranay kadibna waa ugu talagalay inaan dilo meeshii ayaan 2 xabadood ku dhuftay sidaas ayaana ku dilay waxaa jiray in maaragta familka Shayma ay ku andacoonayeen dilka waxaa la ogaa hooyadiis aabihiis walaalihiis kulli way la ogaayeen inay ku andacoonayeen oo maaragta maxkamadda isas uga dacwoonayeen ayaa jirtay waxaa la weydiiyey Aws waxaa la yiri 2 rasaas markaa gabadha ku dhufatay oo aad dilaysay xaaskaaga cid kuma maqlayn miyaa oo dadka guriga jooga mayso maqlayn miyaa oo qof kula ogaa ma jira may ayuu yiri cid maqlaysay ma lahan qof kasta dhacdo markii dhacday ayuu baa la ogaaday ayuu yiri adugu sidii ayaa maaragta uu ninkan kiiskii ku qortay oo dambigii ku qortay oo wax walba sidii u dhaceen u sheegay inuu xaaskiisa u dilay naag u maaragta jeclaaday darteed si ay labadooda u hor istaagin maaragta inay maaragta ishelaan darteed inuu maaragta u dilay ayuu sheegay meeshii ayaana maaragta ninkii lagu xukumay xabsi daa'in oo sidii ayaa dawladdu ku xukuntay oo xabsi uu ku galay xabsi daa'in lagu xukumay sidaas ayuuna maaragta ninkan aad u maangaabka ah oo maaragta caqliga yar oo maaragta aan fakirin sidaas ayuuna wuxuu ku waayay xaaskiisa sidaas ayuuna gabadhiisa yartaa hooyo la'aan ku dhigay sidaas ayuuna naf bili aadan maaragta ku gooyay sidaas ayuu maaragta noloshiisana xabsi ugu dambeeyay adigu familka Shayma geed dheer iyo geed gaaban waxay u koreen in maaragta kiiska gabadhooda aan laga dhigin kiis isdil ah maaragta qofka dilka ka dambeeyay in la ogaado oo la soo saaro ayay go'aan ku gaareen sidaas ayayna maaragta ii sheeg qisadan maaragta ninkaas xaaskiisa ugu dilay oo waliba wuxuu ugu dilay wax sababtee macquul ahayn uu ku dilay inkastoo markasta ay tahay macquul aysan ahayn in qof naf bili aadana maaragta iga raali ahad xooga naf bili aadana maaragta in la gooyo oo kibir loo dilo aysan ahayn haddana ii sheeg qisada gabadhan sidaas ayay ku dhamaatay oo ninkaas sidaas ayuu xaaskiisa ku dilay sidaas ayuuna asaga xabsi ku galay gabadha yarta miskiintana u qoonsaday nolosheedii iyo oo adduunka u dhaafiyay gabadheeda yartaana uga dhigay rajo asagana uu maaragta mustaqbalkiisa iyo noloshiisa uu ku ciyaaray qisadeena caawana intaas ayay ku egtahay qisada Aws iyo Shayma halkaas ayay ku dhamaatay asxaabi intaan qisadan qisa lamida kala kulmi doono wixii ra'yigiina idinka commentiga igu sheegi doona insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.